Howlwadeenada ka tirsan wasaaradda dalka iyo maamul goboleedyada qaar ayaa waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho waxaana halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ka soo qayb galay kulankaasi waxaana hadallo ka mid ahaa ujeedadiisa ama ahmiyadiisa guud waxay ahayd in sare loogu qaado aqoonta iyo xirfadda shaqaalaha kala duwan ee ka shaqeeya kormeerka iyo qiimeynta gaar ahaan qaybta arrimaha bulshada oo aan tababarkan sanadkiiba afarta kuwaatar uu sanadku uu ka kooban yahay ama afarta qaybood aan u qabano afar tababar different types ama different approaches markaad sameynaysan monitoring and evaluation oo kale iyo log frame ama logical frame ka sida loo sameynayo loo develop kareenayo challenges iyo key considerations ka u baahan tahay inaad suubisaan oo kale waxaan qabaa in asaaskii maahane meel fiican oo advanced ku dhow inaad hadda joogtaan oo M&E haddii aad rabtaan inaad suubisaan mashruuc design-kiisu ka soo bilaabanaya halka aad kala ambaqaadaan aadna ku filan tihiin gobolada waxa ka dhacaya iyo waxa federaal ka dhacayo dhinaca mashaariicda oo ka hirgelisay inaad adinku awoodeedii aad leedihiin maalintii hore sidaan sheegnayna in wixii laydiin sheego ama laydiin baray ay halkan looga tago oo roomkan qolkan dhexdiisa looga tago inaysan noqonin waan ka ballan soo maaha waqti baa naga baxay waxa naga baxay maal waxaan ka soo tagnay shaqooyin taas bedelkeeda marka waxa weeye anaga oo diyaarsan oo maaragtay ku raran wixiina laga rabay inaan qiimeyn iyo kormeer aan ku sameeyo inuu nin walba institutionkiisa uu laabto bay qorsho ahayd intaas haddii aan kaga baxo intii aad dabosheen iyo muhiimadda ay leedahay iyo rajada la idin ka qabo tababarkan ayaa socday 3 maalin adigana maanta lagu soo gabagabay magaalada Muqdisho Cabdi Casiis Haykal raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Muqdisho